Try to fix you. adiga shaqadaada ma ahan inaad dadka kala xalisid mismaqluna marka hore inta runta indhaha idinka saarin jimco wanaagsan xalqada maanta waxa miiska noo saaran xaalad aan filaayo in badankeen aan soo wada marnay qaarkeen hadda ay lugaha kula jiraan ama qaar naga mid ah ay hadda kadib la kulmi karaan taasna wax kale ma ahan waa isku dayga inaan badbaadino ama aan xalino qof aan diyaar u ahayn weli ma is aragtay adoo qof siinaayo wax walba ah haysatay enerjigaaga waqtigaaga attentionkaaga oo dhan isku daya inaad qofkaas fahantid dhibka ku jiro alla dareentid ama meesha ka saartid abad baadisid wax alaale waxa haysay dhan aad ku shubaysaa adoo ka filaayo inuu sidan ka fiicnaan doono xalqada maanta adiga kugu socotaa soo qabsa shaaxaaga ama caan waxa cabtid runta isku sheeginay marka hore maxaa keenaya baahida ah inaan qof badbaadino weli ma la kulanto qof aad u dhaawacan like qalbi ahaan xanuunsanaya baasti adag soo maray xasuuso xanuun badan wada noloshiisa aad u cakiran tahay culaysyo badan ay haystaan mar waliba madaxiisa hoos aadan yahay like qofkan waxaa ka dareemaysaa ruuxdiisa inay shil gaari gashay meel kasta soo hadal qaadid uu ka dhaawacan yahay waxay ku dhahayaan aniga wax badanaa soo maray xanuun badanaa soo arkay dadka dhan waa iga tagaan qofaa ku kalsoonaa kara ma jirto adigani qof caadi camal inta meesha ka carari lahayd inta kursi soo qaadataa waxa iska soo jaraysaa challenge accepted dhaawacadan shaqo ku lahayn dhayitaankiisa bilaabaysa adoo ogeyn inaad samayn kartid xatee xaliye isqorqor therapist sharci haysanin Dr. Love kabtan anaa ku nool ani xatee intaas dhan waa soo noqday waxaa aaminsanaa jiray in haddii xoog wax u jeclaado dulqaadkayga zaa'id ka dhigo naxariisteeda xad dhaaf ay noqoto u jilcanaado daacad u ahaado mar kasta meesha u taagnaado qofka inuu bogsa doono wax bogsaday ma leh ani lay daali sheeka ku sheega si fiican ii dhigayso shaaxa iska dhig ila suurayso waxaa lagu jiraa xilli qabooba zaa'id ah baraf aa dhacooyo qof walba wuxuu ku jiraa gudaha qaar dab shidanayo mid bustaha ka hoos jira kuwa cunto energy ka raadinayo anoo rooda kiif dhageysanayo iyo qofkiisa qandicinayo dadka dhan saas u kala bixin laakiin adi banaanka joogtaa maxaa yeelay banaanka waxa ku aragtay qof darjiinka fadhiya oo dhaxan ay dilayso waa ku carartay waxa dhahday gudaha soo gal meeshaas qanda ah waxay ku dhaheen may ani gudaha inaan galo ay waa adagtahay dadkaas ma u tagi kari meeshan iska fadhina qabowga adin inta gudaha ku laab lahayd waa ag fadhiisatay hadda labadiinaba qabowga fadhiisiin laakiin waxa iska soo jaray it's okay haba ku siina aqandaysa gacmaha ku dubaysa qofka sadirna u siisid laakiin wili qabow waa jira waxa arkaysaa qofka inaad wili ku filneen oo diiranaan ku filan aadan sii karin gacantaada jaraysa ho dhiigayga waa diiran yahay xoogaa qandac ka helaysa iyagana waa qaadahaya maadaama dhiig kulul asiisay cabaara ku qandacsanayaan adin waa dhiig baxee guess what weli qabowga wuu jiraa meel uu aadi ma lahan haddana adaa barf ku dilooya maxaa yeelay gudaha gada everywhere waa isfaarujise wax energy ma kugu harin qofkan wax alaal waxa haysa dhanaa siisay welina ma qanacsano ma isbedelin marka horena ma qorsheenin qofka inuu gudaha galo balaanka kaliya oo laha waxay ahayd darjiinkaas inuu fadhiyo dhaxanta ay ku disho xitaa haddii macnaheedu ay tahay in adiga qabowgaas aad kula dhimanaysid diyaar u yihiin qof inaad isku daydid inaad badbaadisid ama xalisid mar walbo saas amal waay u sameynaa marmarka qaar inaan iyaga badbaadino bas isku dayno marmarka qaar waxa badbaadinona qayb naga mid anaga oo iyaga ka dhaxaragno oo rabnay mar kamida mararka in la badbaadiyo qayb naga mid oo dhibaataysneed u baahneed wehel oo la cileeyay waxa uu noqonaynaa halyeeyii aan heli weynay waxa kaliya ku fikirayna waxay tahay haddii qofkan xanuunkiisa ku jeclaado xanuunkeyga qof igu jeclaan doona sababta u sameeyayno iyaga wax shaqo ay ku leeyihiin kaliya waxa uu sameeynaa jab naga mid anaga oo u baahna wehelkaas oo u baahna garabkaas oo u baahna habtaas la joogaas badbaadintaas u dadaaluna maadaama iyaga aan ka dhaxaragno waa fursad ugu faa'iideysan karno in la doorto nolol baahdo muhiim aan noqono baby adi sidaada muhiim ku tahay xitaa haddii qofna aadan badbaadinaynin xaq waxa u leedahay inaa heshid nabad adoo qofna culayskiisa dusha saaranaynin dareemaha culus aan isa saarayno iyo jacaylka aan laga mahadinin aan markasta bixino barbaleemka wuxuu yahay inaan iska dhaadhicino jacaylka la sheego inay tahay inuu ku xanuujiyo waxa u maleynaa the more ay dhiig baxno the more uu jacaylkaas yahay run taas jacayl maahan dareen culayska ka bato oo la qasbaya waaye oo jacayl isku ekeysinayo qof hab waa sii kartaa markii ay marugsan yihiin waa wax loo baahan yahay si ay kugu nafisaan laakiin haddii naxariistaada diirnaxaaga jacaylkaaga iyo u jilcanaantaada ay guriga ag dhisanayaan qofkaas ma tihid lamaanahooda ee waxa u tahay tiir ku meel gaar ah waxa u tahay faashad iyo dabka meesha ka qaataan laakiin ka waran qofkan haddii aad ka tago wax walba ay kasoo afjarmaan ay u dhamaatay iyaga dhan adiga qofkan ilaahooda ma tihid
haddii qof dhan kabashadiisa iyo bogsashadiisa guud ahaan adiga kugu tirsan tahay qofkaas ma kabanayo ee wuxuu ku isticmaalayaa kaliya dugsi ku meel gaar ah kaliya waxay ku qaadanaysaa waqti kooban in energy-ga ay ka dhameeyaan ay ku tuuraan qofka xiga ee raadsadaan si dhiig ugu dhuuqaan waa dhiig cab okay qofkan wuu ii baahan yahay laakiin goorme ka dhamaana oo sii daaya yeel ama diid mar waxaa imaan doonto qofka inta darjiinka ugu istaagtid aad dhihi doontid waa ku jeclahay laakiin gudaha ku laabanaya maxaa yeelay haddaad saas dhihi weysid labadiina qabowga ku dhimanaysin waa ogahay qofkan weli darjiinku dhaxmooha inaad ka dhaqaajisid xaasidnimo camal waay laakiin inaad dhiig baxdid oo qofka aad u dhimatid si dhammaad la'aan ah walaaloo jecelka saas ma ahan isburburis waa waxaas adoo dhool caddeynaya runtan asku sheegna dadkiina qaarkood waxaa samaynaysiin xallis iyo badbaadin waa ka weyn tahay ummad dhan oo dareenka agooma ka ah xanaanihoosin waxaa siinaysiin diiranaan adinka alla adihiin therapy inay wax kaaga baxaan maahan aysan waxba kaaga soo laabanaynin iyo waxaa siinaysaan fursad labaad oo nolosha xaggeeda ah intaasoo dhan wax fiican waaye laakiin ma ka fiicno dhammaad inay leeyihiin indhaha istrin waa ujeeda qofkaana inuu bogsado mar rabo kaliya wuxuu ka helay diiranaanta xagga uu ka helay wifi-ga friga aad siinaysid markasta jawiga uu ka qaldamo nolosha uu iska dhiibo comfortiga aad siinaysid waxaasuu ka helay qoraaladooda aad si degdeg ugu jawaabaysid markay kuu baahdaan aad u joogtid iyo sidoo kale waxaa u carfooyo dhiigaaga ruux walboo dhaawacan isku ruux inaad tihiin maaha macnaheeda intay goorigoor tahay ka dayday meelo kaleeto solmidkaaga not qof waliba oo confused ah oo dareenkiisa aanan fahansanayn oo adigu kuu baahan yahay badbaadadaada Dr. Love shaqada waa dhamaata bax waxa kaliya u qalantid oo waqti inaad gelisid ee taa waxay tahay energy hore gadaal ah waxa bixisid inay ku soo galaan waxa u baahan tahay qof aad iskula socotaan si aad u soo kabataan ama u soo bogsataan ee uma baahnid qof kugu dul soconayo si uu soo bogsado adiga cilaaj ma tihid meel dadka lagu xanaaneeyo ma tihid isbitaal salaxsanak faruuriyahayga si fiican u akhri ana ogolaansho wax ku siinayo waxa fasax u tahay in aad ka dhaqaajisid qof walba aan diyaar u ahayn kabasho iyo koriimo waxay rabaan darjiinka inay ku qalalaan oo ku barfuuban Soomahan dhaxanta uga tag gudaha ku laabo maxaa yeelay daba qaxiska soo aadi hadalkayga hada u maleysid in aad kugu durooyo oo weerar ku wado mid ugu kaliya ma tihid annagoo badan waxa u dhiig baxnay qof aatish xataa noo qorin laakiin qasab ma sheekadaada inay dhamaato adoo baraf ah gudaha ku laabo badbaadi naftaada mar haddii aad bad qabtid kaliya ma tihid qasab waxa ayna qof meesha ku arkaysid qof ana badbaado kaaga baahnayn laakiin qabowga isaga dirsataan at some point waxa ogaa doontaa qofka darjiinka fadhiya mar uu inuu ka kici doono qof isku day karti inay ka dhaadhicis darjiinkaas inuu ka soo xaroodo ma jirto naftiisa inay kicisa maahane so next time uu qofku dhaho la'aantaada waa dhimanaya ma noo laakiri meegitay kartid itusde iga qor waxa dhici doonta qofkaas tacsidaada in laga casuumo uu ka qadeeyo maxaa yeelay uu ka cimri dheer yahay uu yaqaana marka uu darjiinka ka kici lahay ee kaliya wuxuu raadinayay qof la dhaxmooda cabar qarqaray tabartaa maahan qof inta caabi kartid oo garab istaagi kartid garab istaag habsi farxadsi laakiin mar hadaa aragtid qofka inuu meel u soconin aad soco Soomaali markii warka kaaga siisay waxa ku dhahayaan war yaa kugu daalinine xalqada meesha nagu soo dhamaatay aad u maasantii daawashadiina hadii inta soo gaartay dad waxaad tihiin aan jeclahay inaan isla kabano oo isla korno mar walbo intiina hore channelka ugu xiran waa taqaani waxa sameeyay leeyahay inta ku cusub gudaha soo gala dhaxanta ka soo xarooda magacayga Naasir waaye xalqadana waa xalqadii afraad ee barnaamijkeena imtixaanaha ahay ma ogid ilaa ogaatid oo isbuuc kasta aan ku falanqeyno mowduuc madaxayga ka guuxaayo ama kaaga toddobaadkana waxa isla meel dhignay inaad ku khasban tahay inaad badbaadisid qofna haddii aad u baahan tahay inaad si fudud ku daawatid mowduucyada xalqooyinka hore waxa ku dhufan kartaa channelka ama halkan ku soo saaray linkiga playlistiga sida caadi waxa noo balana xalqada soo socoto commentiga like share subscribe ka meedii sheegay tan iyo kan xiga bye bye الحمد لله